waxaa jira cudur loo yaqaano uurdibadeed. Uurdibadeedku waxaa la lahaa in ilmaha ay ku abuurmaan meel ka baxsan ilma galeenka. sida magaciisa ka aqoonsanaysaan uurdibadeed waxa loo dhahay uurku waa inuu ku abuurmin meeshii saxda ahayd ee ilma galeenka dhexdiisa inuu ku abuurmo wuxuu ku abuurmaa qayb ka baxsan. badanaa waxaa sababa infection ku dhaco tuubooyinka, waxa kale oo sababa dhiciska iyo sidoo kale waxaa sababto sida hooyada inay muqaddara isticmaal sida sigaarka iyo wixii la midka ah. dhammaan waxay ka qayb qaataan in ilmaha ay ku abuurmaan meel ka baxsan ilma galeenka. wuxuu lahaan karaa marka calaamadaha uurka mar xataa hooyada calaamadaha uurka sidoo wuxuu lahaan karaa in hooyada caadada iska weydo. hooyada waxay kala lahaanaysaa inay wareer badan ay dareento. calaamadaha uurka marka wuxuu dheeryahay in hooyada xanuun saa'id oo caloosha ka haayo, hooyadana dhiig uu ka socdo. markii hooyada ay baaritaan ku sameeyso qaybta baaritaan waxay ku sameeyso gurigeedana positive uu sheegaa, laakiin marka computer la saaro uu ogaanayo. marka waxaa muhiim ah haddii aad isku aragto calaamadahan sida inaa wareer badan aad leedahay, caloosha saa'id ay ku xanuunayso, dhiig badan uu socdo, markaa baaritaan aad isku samaysidna inaa uur leedahay, baaritaan guriga aad ku samaysidna kuu muujinaa inaa positive tahay, waa inaa dhakhtar aadaa. sababtoo ah baaritaanka yarka xaafadda lagu sameeyo positive uu sheegaa, laakiin marka gudaha markii isbitaalka weyn aad tagtid waa la ogaanaya computerka lagu ogaanaya meesha saxda aan ahayn inay ku abuuran yihiin. marka waxaa muhiim ah hooyada haddii isku aragto calaamadahan inay dhakhtar aado. waxaan kugu soo dhaweynaynaa sheer xirfad oo ah hoyga barashada xirfadaha casriga. sheer xirfad qaybta caafimaadka waxaan kugu diyaariyey koorsooyinka caafimaadka ee aasaasiga sida maternal skills course marxaladaha hooyada caafimaadkeeda lagula socon karo, koorsada nafaqada nutritionka jirkeena nafaqooyinka u baahan yahay ku baranayno. waxaa kaloo idin kugu diyaariyey emergency care qof hadduu xaalad degdeg ah galo sida uu caawin lahayn iyo barashada daawada pharmacology. linkiga hoose ayaa idiin soo dhigayaa koorsooyinka.